nabad ay dhegaystayaal caadiyan dhegaha bili-aadanka qaab dhismeedkooda markaad u fiirsato waad shakalka gudaha ka dheehan kartaa in lagu xardhay magaca allah oo habkaas loo qaabeeyey. arrinkan ayaa ka dhigan in dhegaha bili-aadanka la rabo inay hoggaansamaan awaamiirta raxmaanka abuurtay. waase kuwa bilaadiinta iyo kuwa aan aaminsanayn allah ee diimaha kale fasiraad kale ku naqdiyaan arrinkan iyagoo dabeecadda iyo cilmiga daliishanaya. haddaba allah oo arrinkan beeninaya ayaa mar kale aayaadkiisa ka soo muujiyey ilmo yar oo loogu magac daray maxamed karim bukuus oo sannado ka hor ku dhashay dalka morocco una dhalay taalib karim bukuus iyo rashida dube kariim oo ku noolaa wakhtigaas dooxada bitoot ee dalka morocco. ilmahan yar ayaa markii uu dhashay kusoo dhashay dhegtiisa bidix oo lagu xardhay magaca allah oo si waadaxa marakan u muuqata. arrinkan ayaa saxaafadda adduunka iyo morocco si weyn u soo jiidatay, waxaana ilmahan soo booqday culimmada diinta islaamka si ay u xaqiiqsadaan mucjisooyinka aayaadka allah. waxaana ka sii yaab badnayd in bile kadib dhalashadiisii maxamed uu bilaabay inuu farta u taago mar allaaliya marka salaada la aadimo sida uu maqlayo oo kale. allah ayaa horay inoogu sheegay inuu aayaadkiisa nafahaanteena ka soo muujinayo. حتى